madax xanuunku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee dadka qaar ku dhaca xilliga soonka, gaar ahaan marka cuntada iyo cabitaanka la joojiyo. Saacadaha dheer cunto la'aanta, jirku waxa uu la kulmaa hoos u dhac ku yimaada heerka sokorta dhiigga, biyaha jirka oo yaraada, iyo cadaadis ku dhaca habdhiska neerfayaasha. Isbeddeladan jireed waxay qofka si joogto ah ugu keeni karaan madax xanuun daran ama joogto ah. Waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee keena madax xanuunka xilliga soonka? Fuuqbax ama dehydration. Jirku wuxuu u baahan yahay biyo ku filan si uu ugu shaqeeyo si habsami leh, waxaana soonka lagu dhex jiraa waqti dheer ama saacado badan oo aan biyo la cabayn, taasoo keenta madax xanuun. Hoos u dhaca heerka sokorta dhiigga, low blood sugar. Marka la waayo cuntadii waqtiga dheer la cuni jiray, gaar ahaan sokorta, heerka sokorta dhiigga ayaa hoos u dhaca. Tan waxay keeni kartaa madax xanuun iyo daal badan. Kafayn la'aan. Dadka caba kafeyga ama shaaha maalin walba markay waayaan qaadashada kafeynta oo sabab u noqon karta madax xanuun ku dhaca dadka sida joogta ah u isticmaala maaddooyinka kafeyntu ku jirto, sida kafeyga ama qaxwaha. Hurdo la'aan iyo daal badan. Hurdo yaridu waxay si gaar ah u saamaysaa maskaxda, gaar ahaan haddii qofku uu soo jeedo ilaa suxuurta, isagoo weliba laga yaabo inuusan si fiican u qaadan afurka. Daalku waxa uu sidoo kale keenaa madax xanuun. Isku buuq iyo stress. Xaaladaha niyadda iyo dareenka sida isku buuqa ama culayska nolosha wuxuu kordhiyaa halista madax xanuunka xilliga soonka. Si aad u yareyso haddaba madax xanuunkaaga xilliga soonka, raac tilmaamahan. Inta u dhaxaysa afurka iyo suxuurta, cab biyo badan si aad u ilaaliso jirkaaguna ka hortago fuuqbaxa. Biyo badan oo la cabo ka hor xilliga suxuurta waxay yareysaa suurtagalnimada in madax xanuunku ku dhaco. Qaado cuntooyinka tamarta laga helo adigoo maanka ku haynaya markaad afurayso ama suxuuranayso cuntooyinka laga heli karo sokorta dabiiciga iyo kuwa leh borotiinka. Tani waxay ka caawinaysaa jirkaaga inuu helo tamar joogto ah oo aysan si degdeg ah tamartiisu hoos ugu dhicin. Iska yaree isticmaalka badan ee kafeynta. Qaado hurdo kugu filan. Hurdada fiican waxay kaa caawinaysaa inaad ka fogaato daalka iyo isku buuqa keena madax xanuunka. Haddii aad la kulanto haddaba madax xanuun ama xaalado kale oo caafimaad intaad sooman tahay, soo booqo isbitaalka kalkaal si aad u hesho daryeel iyo talo caafimaad oo sax ah.